السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كيني تهين شغالها. مانتا waxaan ku soo qaadan doonaa mowduuc aad muhiim ah, mowduucaas oo la yiraahdo waxaan ku jawaabayno qodobada hoos u dhiga shaqo wanaaga shaqaalaha. Amba waxyaalaha ka qayb qaata in shaqaaluhu ay noqdaan qaar shaqadooda aanay wacnayn. Waxaanu ka hadli doonaa shan qodob oo ku soo urureen halkan oo aad muhiim uga ah in ay ka warhayaan maamulada shirkaduhu si aanay caqabad ugu noqonin isla iyaga. qaybta koobaad waxay noqonaysaa qodobka koobaad noqonaya qanaaco la'aanta shaqada shaqaalaha. in qofka shaqaalihi aanu ku qanacsanayn shaqada waxay wax badan ka dhimaysaa shaqo wacnaantii isla qofka shaqaalaha. tan oo iyada laftigeedana saameyn ku yeelanaysa wax soo saarkii shirkadu ay lahayd ama shaqadii shirkadu ay qabanaysay. marka qodobkani waa qodob aad muhiim u tahay in waaxda HR-ka ama Human Resource Management-ka cududa shaqaaluhu ay ka warqabto. qanaaco la'aanta shaqaaluhu waa mid qayb weyn ka qaadata inuu hoos u dhaco shaqada ay shirkadu qabanayso iyo sidoo kale shaqo wacnaanta qofka shaqaalaha. qodobka labaad waxa uu noqonayaa isku qasnaanta qofka shaqaalaha noloshiisa gaarka ah. markasta duruuf ay ku yimaadaan kala duwan oo family problem ama caqabado xagga family-ga iyo qoyska amba caqabado shakhsi ay ku yimaadaan isla qofka ay ka mid tahay balwadaha kale iyo waxyaalaha la tacalluqay qofka waxa weeyaan niyadiisa xumeeya waxay ka go'an tahay shaqada laftigeeda. waayo waxay saameyn ku yeelanaysaa markay noloshiisa qofkan qasato isla noloshiisii shaqada. walow ay muhiim tahay in qofku kala saaro haddana marka la eegayo waxyaalaha hoos u dhiga shaqo wacnaanta qofka shaqaalaha qodobkani qayb weyn buu ka qaataa. markasta qofkii duruuf haysato gaari oo isaga u gaari waxay caqabad ku noqonaysa isla shaqada laftigeeda. qodobka ugu yarina wuxuu noqonayaa marka qofka stress haysto ama waxa la dhado waxa weeye isku buuqo wuxuu noqdo qof tabartiisa shaqadu ay hoos u gaabiso ama ay hoos u socoto tan saameyn ku yeelata shaqo wacnaantiisa. marka qodobkana waa qodobaad muhiim ah inay waaxda ama maamulada shirkaduhu ay ka warhayaan. qodobka saddexaad waa han la'aanta qofka shaqaalaha. qofka waxaad arkaysaa dad fara badan oo muddo badan soo joogay oo 10 sano goob ay ka shaqeynayaan. dadkanoon dalaciinba oo wax dalacaan amba dalacsiinaan loo sameyn sababtuna ay tahay wax iyaga ka yimid dhankooda dadaal la'aan inaanay ku kobcin shaqadii inaanay wax badan baran iyo in ay yihiin dad waxa weeyaan hankooda aad u liito oo dadku way kala handuwan yihiin. dadka qaarkood oo dad hankooda aad u sareeyo dadka qaarkoodna oo dad hal meel keliyata ku qancon isbedelka faraha badan la'aan jeclayn. marka han la'aanta qofka shaqaale waxay qayb weyn ka noqonaysaa in uu qofkii niyad jabo. niyad jabka ku imanaya qofku isaga laftigiisu dhigtay ku soo noqonaya waxay ka go'an tahay shaqadii laftigeed bay ka go'an tahay. marka qodobkan waa qodob aad muhiim u tahay inaynu ka warqabno. qodobka afraad waa dad la dhaqanka qofka oo aad u liita. markasta qofka dad la dhaqankiisa uu liito waa markasta uu halis ugu jiro in waxa weeyaan uu shaqada ka tago ama uu halis ugu jiro in shaqadiisaasi noqoto shaqo aad u liidata. waayo isfahamku waa shay aad muhiim u ah kooxda wada shaqeynaysa iyo waxa weeyaan dadka shaqo wadaagta waxaana keensan doontaa markasta la isfahmay in shaqadu wanaagsanaato laakiin markasta qofka dad la dhaqankiisa xumaado waxay keensanaysaa iscanaad madax adag iyo sidoo kale in la isficiliyo oo ay dhaawac badan ku yimaado shaqada laftigeeda. marka qodobkan waa qodob aad muhiim ah oo tahay in ka warhayno. qodobka ugu dambeeya shanaad wuxuu leeyahay xakameyn la'aanta caadifadihiisa kala duwan ee qofka shaqaaleey waxa weeyaan uu sameynayo inaanu xakameyn karin caadifadiisa oo markuu tusaale kala cadhoodo in uu wuxuu doono sameynayo markuu niyad jabo inuu go'aano qaldan u gaadhayo tano keensan doontaa in shaqadiisii ay hoos u dhacdo oo wax soo saarkiisii shaqo uu noqdo mid aad u liita oo ka hooseeya sidii markii hore uu ahaa. marka qodobkan oo qodob ay tahay inaan ka warqabno dhammaan shantan qodob iyo qodobo kala fara badani waxay qayb weyn ka qaataan in uu hoos u dhaco shaqo wanaaga qofka shaqaalihii. waana mid muhiim u ah inay xaliso waxa weeyaan bay xaliyaan maamulada shirkadaha ama goobaha shaqada. barnaamijkani maanta intaas ku kooban yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.